بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. حبناها قلها وزيرة شغالة وينها وزارة هولها جود دولكي جرينتا مدحضة كلاء إن ليش وقتها. حنك السلام يا سلام كسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. روتي فرحت بيت هاي على سوكو بكرينين مدل kastoo lagu abaalmarinayo shaqaalooyinaha qaranka inaan goobjoog ka ahaado iyadoo ay ka mid tahay siyaasadaha iyo barnaamijka xisbiga kulmiye iyo sidoo kale kiigsiga iyo himilada xukuumadda uu madaxweyne Muuse Biixi Cabdi Garwadanka ka yahay sidoo kale hay'adda shaqaaluhuna ay ku korjoogteenaysay siyaasadihii iyo habraacyadii la sameeyay habraacyada iyo siyaasadaha soo runtii hay'adda shaqaaluhu ay ku foganeed muddooyinkii u dambeeyay kuwaasoo damaanad qaadayay xusayay sheegayay in shaqaalooyinuhu ay mudan yihiin hawsha ay qaranka u hayaan in lagu dhaahdo wad mahadsantiin marka caawa in runtii aan goobjoog ka ahaado iyadoo la abaal marinayo shaqaalihii wasaaradda howlaha guud farxadaas ay runtii noo tahay waxaan si gaar ah ugu mahadnaqayaa wasiirka iyo wasiir ku-xigeenka iyo agaasimaha guud ee wasaaradda oo runtii dabaqay habraacyadii iyo waajibaadkii uu nagu waajibiyay xeerka shaqaalaha dawladda xeer number 97/2022 xeerkaas oo runtii si faahfaahsan u sheegayay in shaqaalaha la qiimeeyo oo la xuso sanad kasta howlqabadkooda waxa kale oo runtii iyadana farxadiya in wasiirka wasaaradda howlaha guud wasiir Mustafa uu ka mid ahaa wasiiradii halbowlaha uu ahaa barnaamijka dib u habeynta shaqaalaha qaranka oo in badanna uu ahaa wasiirkaygii hay'adda shaqaalahaan in badanna uu ahaa gudoomiyahayagii guddiga dib u habeynta mashruuca shaqaalaha ee runtii lagu tayeynayay sanooyinkii u dambeeyay wasiirku runtii waxaan aad ugu faraxsanahay inuu la kowsado xaflad uu ka mid ahaa oo lagu abaalmarinay shaqaalihiisa inuu la kowsado oo uu ka mid ahaa wasiiradii budhiga uu ahaa inay sameeyaan oo ay ka dambeeyaan oo ay abaabulaan xeerka shaqaalaha dawladda xeer number 97 iyo habraacyadii ka dhalinayay 16 siyaasadood ee lagu dhaqo shaqaalooyinaha qaranka wasiirku muddada uu gudoomiyaha ka ahaa runtii la hirgeliyay siyaasadahaas iyo xeerkaba xeerka isagoo wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada la hirgeliyay siyaasadahana runtii madaxweynuhu wuxuu ku duugay isagoo wasiirka marka maanta in midhihii iyo dadaaladii runtii hay'adda shaqaalaha iyo wasaaradii hore ku jiray ay madha dhalaan anigana runtii farxad gaar ah bay tahay isagana waan dareemayaa in farxad u tahay shaqaalaha dhammaan la abaal mariyay waxay ku yimaadeen habraaca iyo siyaasadda hay'adda shaqaaluhu dejisay waxaan aaminsanahay wasiirka iyo agaasimaha iyo wasiir ku-xigeenkuba inaanay wax faragelina ku lahayn inaanay wax raadayna ku lahayn oo runtii ay ahayd arrin loo daayay agaasimo waaxeedyada arrin loo daayay sida habraaca uu sheegay in la qiimeeyo shaqaalaha ka hooseeya ilaa ka sareeya habraaca wuxuu sheegay in runtii shaqaalooyinu ay ka wada muuqdaan siyaasaddaasi oo runtii waqtiyadii hore haddii individuals ama dad gaar ah la qiimeyn jiray maanta la qiimeeyo oo la xuso qof kasta oo runtii abaal iyo wanaag iyo dadaal muujiyay sanadkaas siyaasaddu waxyaabaha runtii ay xoog saaraysay waxa ka mid ah marka qofka la xusayo in la eegayo dhaqankiisa akhlaaqiyadkiisa dadaalka wasaaradda runtii iyo horumarku keenay hal abuurku wasaaradda ku soo kordhiyay waqtiga iyo time-ka wasaaradda geliyay uu joogayay sidoo kalena sida uu la shaqeynayay kooxaha ama howlwadeenada kale wasaaradda runtii in dhammaan iyadoo waxyaabahaas oo dhan la qiimeynayo in qofka waashmaanka cleaneriska agaasimo waaxeedyada dadka runtii wasaaradda oo dhami min gobol ilaa degmo runtii la xuso oo habraacaasi uu damaanad qaaday habraacaasi waxaan ku kalsoonahay markaa natiijada runtii ka soo baxday caawa ee lagu abaal marinayo aniguna ma ogi wasiiraduna ma oga agaasimaha guudna ma oga wasiir ku-xigeenkuna ma oga waa hab furan oo daah furan oo runtii qof kastaaba uu iska dhex arki doono si cadaalada oo runtii aan madmadow ku jirin runtii lagu soo xulay waana ta keenaysa in wasiirku caawa dadku arki doono runtii ay noqon doonaan dad imika ogaado wasiir ku-xigeenka iyo agaasimuhuba waana ku kalsoonahay agaasimu waaxeedyadii runtii dadaalkaas soo sameeyay inayna hor keeni doonaan dad mudan waxaana dadka ku leeyahay shaqaalaweynaha wasaaradda wad mahadsantihiin waan idin hambalyeynaya
dadaalka aad samaysaana miisaanka xasanaadka ilaahay idinku daro waxay ka mid tahay waxqabadka iyo hawlaha aynu qaranka u hayno waxay ka mid tahay dadaalada la isku beerinayo ee runtii waddankeena lagu horumarinayo waxay ka mid tahay runtii hawlaha aad u xilsaaran tihiin qaranka inaad ka hirgelisaan wasaaraddu waan aaminsanahay inay ka mid tahay wasaaradaha halbowlaha u ah qaranka ee lafdhabarta weyn ugu jirta waayo waxaan ka xusayaa dhismaha cusub ee hay'adda shaqaalaha loo sameeyey markii dhismahaasi dhammaaday sidii ay u kor joogtaynayeen ee ay u qiimeynayeen ee ay u dabagelayeen ee shirkaddii dhistay ay runtii ugu qiimeynayeen min xagga hoose ilaa xagga u sarreysa oo ay si guud u qiimeynayeen runtii dhismahaasi inuu yahay dhisme ay marka dambe sameeyaan qiimeyntaasi inay shirkadda ku idhaahdaan waad mudan tahay iyo ma mudnida halkaa ku celi marka runtii qaabkii ay ula shaqaynaysay hay'adda shaqaalaha wasaaraddu dhismahaasi markii la sameynayay wasaaradda shirkadda dhistay hay'adda shaqaalaha ku wareejinaysay waxaan ka mid ahaa dadkii goobjoogga ahaa ee la socday waxaan aaminsanahay injineerada iyo dadka wasaaradda ka shaqeeya runtii inay dadaal badan geliyeen oo waqtiyadii hore haddii wuxuunta la iska dhiso waxaas raandhiis aan u yeelanayn mustaqbalka in wasaaraddu imika ay mudan tahay inay qiimayso oo runtii waxaas oo dhan ay muhiim yihiin ugu dambayn shaqaalaha aad baan ugu mahadnaqayaa doorka ay ku lahayd waaxda horumarinta cududa shaqaaluhuna runtii waan xusayaa waanan uga mahadnaqayaa waayo hay'adda shaqaaluhu doorkan iyo sanadkan waxay xoog gelisay iyo sanadkii horeba in waaxdaasi xoog loo dhiso hadday tahay dhinaca aqoontooda tababaradooda iyo runtii habraacyada ay markaa u baahan yihiin waana ta keentay in shaqaale fara badan ay helaan tababaro waa ta keentay in shaqaale fara badan ay maxadka shaqaalaha tababarka galaan waa ta keentay runtii goobaha shaqadu inay isbedelaan oo runtii aqoontii oo aragnimada maanta ka muuqata goobaha shaqadu ay aada uga duwan tahay sanooyin fara badan oo hore haddii la qiimeeyo 5 sano ka hor shaqaalaha qaranka iyo maanta isbedelka ku dhacay aqoontoodu waa mid runtii ilaahay loogu mahadnaqo aqoon ahaan iyo tababar ahaanba taasina waa ta ay keeneen xooggii iyo cududii aanu gelinay doorka ay ku leedahay waaxda cududda horumarinta shaqaaluhu mar labaad iyo mar saddexaad waa idin mahadnaqayaa